Assalaamu calaykum isku soo noqod wanaagsan maanta waxaan halkan kaga hadli doonaa buug hadaad akhrisid in badan noloshaada iyo habfikirkaaga wax badan iska bedeli doono. Buugga ugu horeeya aan soo qaadan doono waa Rich Dad Poor Dad uu qoray by Robert Kiyosaki. Qoraaga wuxuu tusaale u soo qaadanayaa sida buugga cinwaankiisa ka garan kartid aabe PhD weliba dhakhtar lacag fiican sameeya laakiin ka cabanaya inuu isku maareeyo lacagtaas ama isku fulnaysiiyo. sidoo kale wuxuu ka hadlayaa weyl saaxiib ah in aabihiisa aan fasalka 8 dhaafin haddana ganacsada ah. qaybta hore buugga wuxuu kaga hadlayaa labada aabe saameynta ay ku lahaayeen iyo habfikirka ku abuureen. aabihiisa dhakhtarka ah weliba PhD wuxuu ahaa nin lacagta soo gasho isku filnaysiin weliba cabanaya. habfikirku ku abuuri jiray wuxuu ahaa waxbaro dadaal sidaad u noqotid shaqaale wanaagsan. aabihiisa taajirkana wuxuu kula talin jiray inuu iskuul aado dadaalo siduu uga tago company ganacsi u abuurto isagana loogu shaqeeyo. sidoo kale wuxuu arki jiray labadii aabe mid oranaya waxa ma awoodno midna oranaya sidee ku awoodnaa. midda lacagta markii laga hadlo ismoogsiya midna ka fikira siduu hanti u abuuri lahaa fikrad ganacsi u keeni lahaa. yaraanteeda dhan waxaa dhageysan jiray talooyinka qaadan jiray labadeyda aabe anigoo 9 jir ah. waxaad doortay inaan dhageysto aabahayga taajirka ah aan iskuulka dhammayn. fikradda labaad ma tihid qof faqiir ah laakiin waxaa tahay qof jeebkiisu maran yahay ama shiid ah. waxaa laga yaabaa in waqtigan jeebkaagu maran yahay laakiin faqiir ma tihid. hadda fikirkaaga bedejid isbedel weyn ayaa samayn kartaa halka faqiirka laga noqdo ma aha jeebka ee waa maskaxda. fikradda saddexaad waa ilaha dhaqaalaha wuxuu leeyahay buug waxaa jira 4 ilo dhaqaale kugu soo gala midka shaqaale inaad noqotid ama ganacsi yar inaad lahaatid iyo ganacsi weyn ama inaad samaysid maalgashiyo. midda ugu wanaagsan hanti ku abuuran karto waa inaad ka soo wareegto shaqaalinimada aad u soo wareegto ganacsada weyn iyo maalgashiyo inaad samaysato. sidee adigoo shaqaale ugu soo wareegi kartaa ganacsada iyo maalgashiyo u samayn kartaa haddaad doonaysid inaad xorriyad dhaqaale gaartid ugu yaraan 10% ama 25% dakhliga ku soo gala waa inaad maalgashiyo ka samaysid ama keyd ka dhigatid. fikradda afraad muhiimadda ma ahan dakhliga ku soo galayo intuu la eg yahay waxaa muhiim ah inta ku soo gasho intaad ka keedin kartid waayo wuxuu leeyahay way sahlan tahay in lacag la sameeyo laakiin way adag tahay in la keediyo. fikradda shanaad kobci aqoontaada dhaqaale waxaa in badan wax ka bedeshaa fahamka xisaabaadka iyo maalgashiga iyo inaad fahantid suuqa iyo inaad wax badan ka ogaatid canshuuraha. intaas ayaan ku soo koobayaa buugga inoo xiga sheekooyinka guusha ee dhiirigelinta la uu qoray Cabdirasaaq Faarax Caawad. buuggan wuxuu ku qoran yahay luqadda Soomaaliga wuxuu ka hadlayaa sheekooyin ku saabsan dadka guuleystay iyo caqabadaha ay ka soo mareen guushooda. dad badan oo raba inay guul gaadhaan noloshooda ganacsigooda iyo shaqadooda ayaa ku fashilma ama caqabado ka hor imaadaan oo keenay jawaab. buuggan haddaad akhrisid waxaad ka helaysaa sheekooyin dhiirigelin leh midaas oo xamaasadaada iyo hamigaaga sare u qaadaysa. dadka guuleystay waxaa ka mid ah uu qoraagu tusaale ahaan u soo qaadanayo Jack Ma. Jack Ma waa muwaadin u dhashay dalka China. wuxuu isku dayay inuu shaqo ka helo maqaaxi cuntada lagu kariyo laakiin badankoodii way diideen inay shaqada geliyaan. kadib markii uu codsiyo badan oo shaqo ah meelo kala duwan u dirsaday ee loo diiday ayaa wuxuu go'aansaday inuu shaqo macalinimo raadsado. sababtoo ah wuu ku guuldareysay inuu shaqo dhaanta hela. Jack Ma wuxuu dhigi jiray luqadda Ingiriiska isagoo qaadan jiray lacag ka yar $10 bishii. kadib wuxuu asaasay website online wax ku iibsa loo yaqaan alibaba.com. hadda waa ninka ugu taajirsan waddanka China oo dhan. sheekada aynan ka baranay Jack Ma waxaa suuragal ah inaad ka bilowdo ganacsigaaga meel aad u hooseysa oo aad noqoto billionaire ma ahan millionaire. Jack Ma wuxuu tusaale fiican u yahay dadka ka soo bilaabay meel ka hooseysa 0 iskuna daray liiska ugu sareeya ee taajiriinta adduunka. marka ay riyadaada iyo hamigaaga weyn tahay waxyaabo hoose kuma dhibi doonaan. Jack Ma wuxuu ku noolaa nolol adag muu hayn qof ku nolol raaxa muu lahayn gaadhi iyo bangi ay lacag u taalo toona. sababta wuxuu cadeeyay adduunka in dhaqaaluhu aanay caqabad ku noqon doonin haddii riyadaadu iyo hadafyadaadu ay waaweyn yihiin. buugga inoo xiga waa mid ku qoran luqadda Soomaaliga uu qoray Ismaaciil Tukaale. maxaan u dooranay dariiqa faqriga miyaan dunida hanti inagu filan oolin. buuggan wuxuu in badan wax ka bedeli doonaa noloshaada haddaad si dhab u raacdo. talaabooyin ku sharxayo buugga waxaa ka mid ah 50 sababood ee faqriga keena. waxaa ka mid ah fahan la'aanta qaanuunka nolosha. waxaa tahay qof raadinaya in cid kale shaqo siiso.
waxaad ka fikirtaa caqabadaha oo keliya marna kama fikirtid midhaha dambe waxaad isku haysataa inaad wax walba taqaano oo aqoon kororsi diyaar u mitihid waxaad tahay mid caajis badan oo hurdo badan intaas ayaan ku soo koobayaa intaas ayaan jeclaystay inaan maanta idinla wadaago mahadsanidin